xuska sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegtay maalintii gobolada koonfureed ay ka qaateen xornimada gumaysigii Talyaaniga ayaa lagu qabtay magaalada Khartoum. Isla maalintan sooyaalka ku xusan ayaa sidoo kale ah maalintii ay midoobeen goboladii waqooyi iyo koonfureed lana yagaleelay Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliya. Xuska 1 Yuulyo ee ka qabsoomay magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan ayaa ku soo beegmay xilli isbedel siyaasadeed uu ka jiro waddankaasi, balse waxa uu suur gashay safaaradda ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Suudaan inay qabtaan xaflad ay ugu dabaaldegayaan munaasabadaasi. تصفية الاستعمار إن استعمار هرتا لبابيو ماشى لقى سارو إن لاس أمد الصوماليات أما شنطة أو استعمار قيبي شنطة قيبي إن لم يدعي ورديار مونا هي إن ضل كان حرامه ديار مونا هي إن نقشق إنه لماذا ضل كان ديار مونا هي إن أي ضل كيديب وكب بحي قبل لماذا أها إنه دليل كان هذا ما تكبره. munaasabadda xuska ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo jeediyay gabayo, heeso, hadallo murti iyo maadba wata, dhammaantoodbana lagu xuseeyay maalintaasi. waan tarqanayaa inaan dawlad halanoon mar qura dib isu soo taagno adinkoo ku daba joogo oo wali u diifaysan oo doonayaa baydan garan dawga loo maray haddii aan dastuurka iyo sharciga diidma laga keenin oo aan dulmiilaha qabiil lagu difaacaynin waa la daba qabtaa caanihii daata abidkooda hawl lagu dadaalaa waqeed. xafladda waxaa ka soo qayb galay safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti, kusimaha safaaradda Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan, jaaliyadda Soomaalida, ganacsatada iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan. war Soomaaliya shalay calan bay heshay, midnimo ay heshay, dawladnimo ay heshay, intii iyada ahayd annaga haddana iska daadinay oo burburinay ma soo ceshan karnaa, ma haysan karnaa, way noo soo noqotay ma haysan karnaa, ma ceshan karnaa, intaasay isugu soo ururaysaa marka hadalka soo koobo. dabaaldega ayaa lagu qabtay gudaha Jaamacadda Afrika, waxaana lagu wadaagay goobta sooyaal iyo xusuuso soo jireen ah halgankii dheeraa ee loo maray jidkii xornimo-doonka iyo kaalintii lama ilaawaanka ahayd ee dhallinyaradii SYL ay ku lahayd xornimada gobolada koonfureed. waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda dareenkii ay lahayd maalintii calanka isku darka laga taagay geyiga Soomaalida, dareenka hadda iyo hagardaamooyinka ku hareeraysan hanaqaadka dowladda Soomaaliyeed oo lagu baraaro. anagoo isku duuban oo ah arday safaarad jaaliyad isugu jirta ayaa qabanay barnaamijkan oo ah habeen qaran, habeen lagu maamuusayo 3 munaasabadood oo isdaba yaalay. alxamdulillah si fiican ay noogu soo dhamaatay. dalkan aan joogno oo dadku ay ka aaminsan yihiin in dhibaato ama mashaakil ay ka jirtana waxaan rabaa Soomaalida inaan iraahdo wax hadda dhiba kama jiraan ama waalidiin ay ka joogta halkan caruurahooda anigoo ku hadlaaya magaca maxayntoolee waxbarashada safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Khartoum ku leedahay. dhib hadda weyn ma jiro. waalidiinta ila soo xiriiro ama isoo weydiiyo ama aan hadda isoo weydiina laakiin arki doono barnaamijkan waxaan leeyahay magaaladan way degan tahay alxamdulillah. sida aan moodno ma ahan, sida akhbaarta laga arkana ma ahan, laakiin waxay mudan tahay in loo duceeyo maxaa yeelay arday ku dhawaad gaaraysa quraabata 4,000-5,000 gaaraysa ku nool iyo jaaliyadeeda. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay ha ka dhigo meel degan oo ay ilmahaas wax noogu bartaan. aan sugayno inay yihiin mustaqbalkii berri biidhnillaahi ta'aala. magacaygu waa Faadimo Cabdulaahi, waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska ku aadan 1 Luulyo sanad guurada xurriyadda xilliga qaatay iyo midowga Soomaaliya. dhammaan waxaa leeyahay sanad guuro wacan meel kasta ay joogaan Soomaali weyn. aad baan ugu hambalyeynaya, aad baan ugu faraxsanahay caawa ku aadan xuska 1 Luulyo annagoo ah ardada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan, gaar ahaan caasimaddiisa Khartoum. anigoo magaciisa Saalax Ali Maxamed kana mid ah ardayda dalka Suudaan wax ka barato, gaar ahaan ardayda wax ka barato Jaamacadda Afrika. caawa waxaa halkan dabaaldeg iyo farxad aan la soo koobi karin kula qaadanay shacab weynaha Soomaaliyeed dhan kasta bay ahaadaan, haddii ahaan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi, gobolada Jabuuti, NFD
dhan kastaba waxaan caawa halkan isugu nimid in aan xusno xuska xornimada Soomaaliya munaasabad walba xus leh xus walbana waxa uu reebaa raad sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegtay Koodoluliyo waxay Soomaaliya u bilaatay iyadoo uu ka jiro waqti ka duwan kii laga filayay 1960kii balse su'aashiisu idinta mudan waxay tahay maxaa mustaqbalka dhow u qarinaya Soomaaliya aadan haybe العالمية TV مجال الخرطوم